gabagabo meeshaan fadhisa oo cayr ninkaas dhintay oo sharci darrada lagu dilay waxay u haystaan oo loo haystaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa si kas ah oo sharci darro ah oo indhala'aan ah u dilay wiilkaas u saxiixay ayadoo uu madaxweynihii xilligaasi ku dhiiran waayey oo uu ka gaabsaday waxaana kiiskaas ku baxay intii aan hoosh ku jirnay qarash aad u fara badan oo magtii ka badan xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay in la dilo aydiid isagoo dana gaara uga leh koonfur galbeed mana uusan baarin sax ahaanshiyaha xukunka oo uu dib u celiyey madaxweynihii asaga ka horreeyey maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu arkay sharci inuusan ahayn kiiskaas uu ahaa kiiskaas inuu kama ahaa qodobada soo socda kow wasiirku habeenkii uu dhimanayay wuxuu gacantiisa ku watay gaari aan ahayn gaarigiisii lagu yaqaanay oo ahaa gaari nooca raaxada ah isagoona ku socda si xawaaro ah waxaana uu ka daba yimid gaari hantidhowrkii qaranka oo watay labo waxaa soo kala dhex galay labada gaari kala shaki labada baabuur soo kala dhex galay iyo ayadoo ku dambaysay israsaasayn dhex martay labada baabuur saddex mid ka mid ah ilaaladii wasiirka ayaa waxa uu maxkamadda horteeda ka sheegay in dhowr jeer ay wasiirka ku yidhaahdeen gaariga aayar u wad waana kala shakinay baabuurkaas naga horreeya wasiirkii wuxuu ku jawaabay wasiir cabbaas iyo aydiid isma aysan aqoonin oo wax aqoona kama aysan dhexaynin mana aysan jirin wax aqoon ah oo ka dhexeeya labada nin xeer ilaaliyaha guud qodobka shanaad xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo markaas ahaa kiiska baarihiisa ninka lagu magacaabo buulle kamey wuxuu maxkamadda horteeda si cad oga sheegay in uu kiiskaas uu yahay kiis kama ah markii uu baaritaan sameeyey kadib maxkamaddu waxa ay markhaati ahaan u soo sheegeen 9 qofood inay markhaatiyaal ka yihiin kiiskan mid ka midna lama keenin maxkamadda horteeda waxaa maxkamadda la keenay taliyihii xilligaas ee ilaalada madaxtooyada oo haddana ah generaalka ciidamada generaal odawaa yuusuf raage isagana wuxuu meesha ka sheegay in uusan goobjoog ka ahayn dhacdadaasi hase ahaatee uu ku soo baxay israsaaseyn dhex martay labada baabuur sidaas daraaddeed kiiskii waa la farageliyey waxaana laga weeciyey waddadiisii sharciga ahayd waxaana kiiskii ku lug yeeshay oo soo farageliyey xafiiskii ra'iisul wasaarihii xilligaas xasan cali khayre oo si dhow saaxiib ula ahaa wasiir cabbaas siraaji waxaana kaloo jira wakhtiga khilaaf xooggan ee u dhaxeeyey xafiiskii hantidhowrka iyo xafiiskii xasan cali khayre xasan cali khayre wuxuu si aan gabasho lahayn culays u saaray iyo cadaadis u saaray maxkamaddii ciidamada qalabka siday xilligaas oo kiiska taagnaa liimaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xildhibaanada koonfur galbeed ee baarlamaanka federaalka xilligaas waxay isku bahaysteen in kiiskaas cadaaladda in laga weeciyo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ee xilligaas shaqada haayay wuxuu kiiskan ku sheegay in uu yahay kama wuxuuna amray in labada beelood is arkaan haddii la isfahmi waayana kiiskaas oo cadaaladda sharciga islaamka u bandhigayo wadahadalka qoyska dhex maray markaan u soo gudbo in ka badan 10 jeer ayay qoysasku isku arkeen dhowr dhinac isku arkeen waxaana lala kulmay aabbaha dhalay cabbaas siraaji waxaana kiiskaas ku baxay
intii aan hoosh ku jirnay qarash aad u fara badan oo magtii ka badan waxaa iska kaashaday kiiskaas in la fuliyo wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur jaamac iyo agaasimaha madaxtooyada qaranka xuseen sheekh maxamuud haaruun oo markii hore ahaay senator oo gacantii koowaad ee madaxweyne xasan sheekh ka soo saxiixay kana qayb qaatay dib u soo celinta liibaan cali yarow si loo fuliyo kiiskii aydiid xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay in la dilo aydiid isagoo dana gaara uga leh koonfur galbeed mana uusan baarin sax ahaanshiyaha xukunka oo uu dib u celiyey madaxweynihii asaga ka horreeyey maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu arkay sharci inuusan ahayn